ninka lagu naanayso dhammaystirnaha sinimada Hindiga waa jilaa soo saare qaabeeye iyo sameeye filin Aamir Khan waxa uu ka mid yahay boqorada Bollywoodka waxa uu sameeyay filmaanta qaybtooda ugu hidsan ee Bollywoodka sidoo kale waxa uu ka mid noqday 100 qof ee ugu saameynta badan sanadii 2012 magacaygu waa Cabdiraxmaan Siciid Warsame halkanina waa janalka Ilayska Dunida haddaba ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta iyo dhextaalka janalkaba Aamir Khan waxa uu dhashay 13 Maarso sanadii 1956 waxa uu ku dhashay cusbitaal ku yaal magaalada Mumbai waxa uu ka dhashay qoys sanado badan ka tirsanaa Bollywoodka aabihii waa Daahir Hussein oo ah filim soo saare sidoo kale adeerkiina waa filim sameeye wuxuu waayihiisa jilinka bilaabay isagoo jira 11 sano filimka uu waday adeerkii Aamir Hussein kadib waqtigaas wuxuu si dhameystiran u noqday jilaa sanadii 1986 waxa uu keenay filimkii Holi waxa ayna wadeen in adeerkii Mansoor Khan kadib 8 jaa'iso oo loo sharaxay 80maadkii iyo 90maadkii waxa uu ku helay xidig ugu fiican filimkii Raja Hindustani ee sanadii 1996 mashruuciisa qaabaynta filmada waxa uu ku bilaabay filimkii loo sharaxay jaa'isada Oscarka ee Lajan waxa uu ahaa actooraha wada filimkaas mar labaad ayuu ku helay jaa'isada Fiir ee la siiyo jilaaga ugu fiican kadib 4 sano oo fanka uga maqnaa arrimo shakhsiyadeed waxa uu markaa helay jilaaga ugu fiican booskiisa filimkii Ranti Basanti sanadii 2007 waxa uu soo saaray filimkii ugu horeeyay uu soo saare ka noqday oo ahaa Taarizo Member waxa uu ku helay soo saaraha ugu wanaagsan sanad kadibna waxa uu jilay filimkii Gajni oo noqday filimkii ugu tigidii iibsiga badnaa taariikhda filimada Hindiga sidoo kale waxa uu mar saddexaad ku helay jaa'isada Fiir Aamir Khan waxa uu markan dunida u cadeeyay inuu yahay rugcadda dhanka jilinka iyo soo saarista filmada ah sanadii 2009 waxa uu keenay filimkii Three Idiots ama Saddexdii Nacas waana mid ka mid ah filmaantiisa kuwa ugu fiican looguna jecel yahay dunida waxa uu ka hadlayay waxbarashada iyo sida ay u disho hal abuurka ardayda waana arintan tii ugu hadlayay filimkiisa Taarizo Member sanadii 2013 waxa uu keenay filimkii BK oo ah filmaanta Bollywoodka kuwooda ugu sheekada macaan waana filimkan la isbarbar dhigayay horjoogayaasha diimaha waxa uu arintan ku jilay qaabjiliin comedy ah waxaana filimkan loo sharaxay filimkii ugu fiicnaa sanadkaasi filimada Hindiga Aamir Khan waxa lagu yaqaanaa qaabadalida jirkiisa dhisidda murqaha waqtiyo qiyaasan iyo isu ekeynta waqtiba qaabka uu qurxoon oo ay tahay in loo matalo sheekada filimka uu matalayo sidoo kale waa jilaa karnu sheega qaabka loo jilo filmada sanadii 2012 waxa uu Aamir Khan noqday xidiga kaliya ee Bollywoodka ee u safray Makka si uu u guto waajibaadka xajka isagoo halkaas geeyay hooyadiisa inkastoo ay badan yihiin biladaha uu ku guuleystay haddana wali kama qayb galin xafladaha lagu bixiyo jaa'isooyinka isagoo sheegay inay tahay wax ku haboon jaa'isada inay niyadda u dhisto qof ujeedadiisu ay ahayd bilada oo kaliya Aamir Khan waxa uu ka soo jeedaa qoys asalkooda ay ahaayeen muslimiin intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkeena maanta fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe dheh siina share garee oo gaarsii ugu yaraan hal qof oo asxaabtaada ka mid ah